Okay, asalaamu calaykum. Waa qeybtii labaad oo ka hadlaysay abalka, sidee abalka oo imtixaankan ku geli doona haddii la yidhaahdo loo diyaarinayo adoo excelka isticmaalaya. Excelka isticmaali doonto kan unbuu noqon doonaa. Computerkaad hadda haysato ka ku jira unbuu noqon doonaa. Muhiimadu waa practice weeye. Haddii aanad haynina computerka aad hor fadhiisan doonto waa kan oo kale. Mooska haddayna gacantaada fadhiin goor imtixaankaaga dhib ay ku noqon, marka waxaad u baahan tahay inaad mooska lasii qabsato. haddaad girgiritid dee meel kuma dhufan karaysid. Marka waxaan ka hadalay markii hore oon idin tusay sida purchases loo sameeyo. Purchasesku magaca sare wixii lagu siiyaad ku qori, magacaasna waad qoraysaa. inta titlada kore waa number iyo name, quantity tiradii, unit price amountigii. sidoo kale tablekan aad u sameynaysaa ama borderkan ayaad gelinaysaa. sidoo kale totalka ayaad diyaarinaysaa. waxaa kaloo diyaarinaysaa faadka, labadoodana la isu geeya subtotalkana diyaarinaysay. maadaama yaro fog yahay waxaan jeclaa inaad idiin soo dhaweeyo saad u aragtaan muuqaalkii hore. maadaama yaro fogaa waa kaas inaad ujeedaan baan filayaa. aan yareeyo oo aad ujeedaan. marka saasaa loo diyaarinayaa. hadda inaad si wacan u aragtaan bay ila tahay. waa kaas saasaa loo diyaarinayaa. muuqaalkii hore aad uma yara muuqan, laakiin hadda waad sawiran karaysaan maadaama fogaa oonan markii zoom aana ku sameynin. waa kaas saas ayaa loo diyaarinayaa. waxa ugu weyne laga rabaay waa inaad tableka saas u diyaarsataa ama borderka aad u sameysaa. waxana aad wada gelisaa, mid walba column walba waxa ku jira aad gelisaa. saddexdan qayboodna aad diyaarisaa. sidoo kale amountigana aad isagana diyaariso, kadibna aad kuwana isagaba ka shaqeynba. saddexdan adaa laga rabaa inaad ka shaqeyso. sidee loo diyaariyaa waayahay. haddii aad siinayso abal sidoo kale shaqaale, waxaa la sameynaya marka waxay sida kan oo kale un wey. xaggaasi dee xafiiskaaday kugu xiran tahay, ma wuxuu macalinku siiyo baad eegi. kadibna xaggana waxaan kutusayaa keliya haddii ciwaanka saas oo kale lagu siiyo. muuqaalka hore waa kaa idin tusiyay see magaca loo qoraya. xafiis magacii haddii lagu siiyo, shirkad magaceed, xagganaad saa ujiidaysaa. saa markaad ujiido intaaba ku daa. waxaad sameynaysaa baan kuuli merge ayaad odhanaysaa. merge and center ku dhufo. waa kaas waan isku furay inaan magac ku qoran rabaa. hay waxa laga yaabaa halkaadaasa inaad ku wareerto is tiraahdo talo de haddii tableka meesha ka baxay ama wax xariijintii see wax noqonaya. waad iskaga qoraysaa bas magaca lagaaga baahan yahay waa kan. waxaad ku qori kartaa management college ayaad iskaga qori karaysaa. adigu waxa aad rabto ayaad ku qori magaca. magacii hore laftiisii ayaan ku tusaaleynaynaba. kaba soo qaad inuu magacii hore laftiisii yahay. kii ayaan soo koobiyeynaynaa. okay, magaca hore isoo koobiye. then xaggan imo. okay, diidan yahay. wuxuu rabaa isagoo dhamaystiran inaan soo qaadan filaya. kaas hadduu yeelay. marka waan weyneyneynaa. si aan u weyneyno aadha baan saaraynaa. kadib xaggana ka weyneyneynaa. xaggan waa 11. intaas kii hore kuma tusin, laakiin u fiirso xaggee laga weyneynaya. har baad saaraysaa horta. har markaad rabto inaad saarto daasoo saas ma sameynaysid. waxaad sameynaysaa double click baad iska odhanaysaa. si aad double click markaad tiraahdo har baad saari, kadibna halkaasaad ka weyneynaysaa. taas waa yaro bold ku samee weeye, yaro buuree weeye. laakiin tan waa seeska weyne 16 17 waxaasaad ka dhigan waxaad rabto. tan ku daa. okay, markaad magacii shirkadda lagu siiyay saas u diyaarsato, waxaad bilaabaysaa warqadii diyaarinta maxaan ku dhahaa abalka. si shaqaalaha abalka la siinayo waxaasi aad u kala ogaato. okay, maxaan sameynaynaa marka horeysa numberkan qoranaynaa. serial numberkan qoranaynaa. waan iska soo gaabsanaynaa serial number.
haddii kale waxba serial number ha qoranin, xagga maxaad ku qortaa no waa number. sidoo kale xaggana maxaad ku qoraysaa description haddaad ku qorto iyo haddaad name ku qorto waa iska mid, name. okay, xaggana maxaan ku qoraynaa right baad ku qoraysaa, waa right-kii qofka loogu dhufanayay. right-ka markaad ku qorto xaggana waxaad ku qoraysaa days, waa maalmihii qofku uu abalka la siinayay. days markaad qorto xaggan waxaad ku qoraysaa amount, amountiga waxay noqon doontaa right-ka iyo dayska oo la isku dhuftay bay noqon doontaa. columnka sixi waxaa lagu qorayaa waa sign, waa saxiixi. okay, halkaa markaad marayso imsa qofaad raba waxaad isweydiinaysaa imsa qofaad u diyaarinaysaa wixii. kow waad dul tegaysaa, dhag baad ka siin, lambar kow baad qoraysaa. xagan kale labo, dabeetana markaad intaa qorto computerka wuxuu u fahmayaa in tirada aad xaggaas kasii wadayso, oo asaga haddaad halkaa jiido waa kan cashirkii hore kusii sharax. halkaa yar baad tegaysaa. si hore uu idinka fog yahay aan soo dhaweeyo, waan iloobay. hadda waad ujeedaan baan umalaynayaa. okay, saasaad har soo saari, labadooda saasad soo jiidi. kaa koraad dultegi ilaa kan labaad baad soo gaarsiin, waad ka qaadi. halkaasi markay furanto soomaalida calaamada balasta jiid. imse shaqaalada rabtaa? inaga 4 baan rabnaa. adi wixii lagu siiyay ku xidhantay 5 6 7 wixii lagu siiyay ka xidhantay. saddexdaaba ku daa saanan waqtigu u dheeraani. haye halkan magacaan rabnaa, magacyadooda diiwaan gelinaysaa. kasoo qaad kan waxaan leenahay ninkani waa maxamed cabdi. haye wuu gudbay, right-kii buu gaadhay. cashirkii hore aan ku sharxay saad u saxayso waa inaad hadda xasuusan karto. waxaad samaynaysaa kanaad ku qoraysay laakiin cabdi baa xaggaa gaadhay, xaggaasaad tegaysaa korka. soo ma aragtid? halkaa korkaad tegaysaa. maxaad samaynaysaa korka markaad tagto calaamadaa eeg balastaa, liidkaa yar ee kor ujeedeed aragto baad raacaysaa. intaa aad hadda sii raacayso kuma gaadhsiinay, laakiin gees koro kolkaad tagto eeg si isu bedelo. waa kaas jiid. saas waad ku weyneyn kartaa. si kalaan cashirkii hore idinku sheegay oo ahayd, hadda waan soo laba celiyay, xaggaas weli ku jiraa soo maa. waxaad samaynaysaa raac. markaad dul tagto haddii mousku uu ku dhibayo oo aad la gargariraysid, markaas aad dul istaagtay calaamadaasi kuu soo baxdo, farta qeybta right-ka mouseka qeybta midigta iyo 2 jeer oo degdega dhagdhag ka siin, isagaa isa saxay. oo kaa hadda 4 jeer moodin markii hore aanan caadi ugu dhufanin, 2 jeer oo degdeg oo kaas. haye waxaan leenahay qofkan kalena waa nuuro yuusuf. okay, nuuro yuusuf. kana waxaan leenahay waa faysal yaxye. hal qof aan ku dari, 4. haye naciima. maxaan idhahdaa naciima cabdi iska dhayadana. 4taa qof aad rabtaa inaad u diyaariso. 4taa qof maadaama rabto inaad u diyaariso, kow nin waxbartay iska dhig oo excelka xariif ku ah. marka waxaad samaysaa border samee. borderka hadda hore aan u sheegnay waa kii xaggan intii la tago borderka lasoo gelinayay. marka laakiin aad har saarta ka horeysade ilaa marka halkaas ha iskagama wada odhanaysa, adduunkaas oo dhan wada saari maysid. xagga numberkaad kaga soo bilaabi, numberkaad qaban waad wadaysaa, xaggaas aad wadaysaa, xaggaas aad wadaysaa. oo kaas number 4 buu ku joogaa oo naciimo cabdi. intaa markaad saa u qorto aad saa harka u saarto ka qaad, xaggay tegaysaa fontiga qeybtii hore aan kuu sheegay, click-c. kadib xaggay tegaysaa all borders baad leedahay, dhammaan border ii saar. intaan harka kuu saareen kuu sheegay ii saar baad odhanaysaa. no haddaad tidhahdo waa ka qaad. somarti inuu yaalay. okay, right-ku wuxuu ku xidhan yahay qofku aad imtixaanka macalinku uu sheegay. waxa uu dhahay right-ka qofka normal sirtanyaaga ah, habashi baa iga fakaday malaha, qofka oo normalka ah, shaqaalaha normalka ah oo aan ahayn managerka iyo waxaas, waxaa la siiyaa 353. intaas meel ku qorta
353 aad bay muhiim idinku tahay. waa qofka normalka ee shaqaalaha caadiga ah. sidoo kale qofka managerka oo kale isagana waxaa la siinayaa buuli 450 baa loogu dhufanayaa raydka. kasoo qaad maxamed waa managerkii, casaan baan siiyey, dadkan kalena waa shaqaalihii iska caadiga ah. maxamed raydkiisa maxaan uga dhigaynaa maadaama manager yahay 450. haye okay, nuuro maxaan uga dhigaynaa waa sirtanya, yani normal sirtanya baan odhanaynaa kan 353 oo qof shaqaalo oo normal ah weeye. okay, kana waa normal employee qof shaqaala ah. waxaan sameynaya marka halkan yar baad iska jiidaysaa, mar walba isaga excel kaaga shaqeynaya, haddaanan qaldanayn isaga kaaga shaqeynaya oo aragtaa intaad qorqori leed hadda halkaan baad mar walba jiidaysaa. okay, raydkii waan qoray. dayska imsa maalmood baa qofkani abalka la siinaya waa imsa cisho. ninkan waxaan leenahay abalka la siinayo 8 cisho. 8 ugu wada dhufaba 8 waa 8 cisho. ilaa waxay ku kala duwan yihiin raydka ayay ku kala duwan yihiin. kan kalena 8 markaad saa usiiso amountiga see looga shaqeynaya. haddaad fahantay amountiga xaggan ah sida looga shaqeynaya, amountigan maxaa la isku dhufanaya, quantiga lagu dhufanaya unit price-ka. kana waa sidii oo kale un raydkan ayaa lagu dhufanayaa maalmaha. aad buu fudud yahay. equal qoro kadib waxaad leedahay raydka oo 450 oo lagu dhuftaydan horaan sii sharaxay 8 ku dhufo click waa imsa 3600 buu qaadanayaa. waa qofkii managerka waa maxamed maadaama 450 loogu dhuftay. kuwan kalena hadda markaad halkaa tagto ma odhanaysa xagga intaad tagto calaamadii baan soo jiidayaa, sababtoo raydkooda isku mid ma aha. marka inaad soo jiidid ma aha, waxba inaad soo jiidid muhiim ma aha. waa inaad adigu aad saartaa aad ka shaqeysaa. kuwan dambaan isla jiidayna haddii la yidhahdo. marka waxaan leenahay 353 waa nuuro oo lagu dhuftay waa raydkeedii leene 8 cisho. maxay qaadanaysaa iyadu 2824. managerka ka badan ay raydka ka duwan. okay, tanna equal waxaana 353 lagu dhuftay 8 equal. okay, equal 350 lagu dhuftay 8. okay, intaas waan isla fahnay. haddii lagu yidhahdo abal diyaari waa intaa, wax kale ma aha. xagga saxiixa dhib ma lahan. hadda computerka waxba ku saxiixi maysid. haddaad saxiix raadsays tiraadana kolley wax waad iska xariiqi kartaa oo away insertidii wax waad iska xariiqi kartaa, laakiin de saxiixu qofkay ku xidhan tahay habka wuxuu saxiixayo. okay, kaas saxiix ma noqonayo. computerka laftiisa wax waa lagu saxiixi karaa, laakiin kolkii lasoo saaro baa qofka uu warqada uu xagga assignka uu iska saxiixaya. laakiin hadda imtixaanka wax saysi kaagama xidhno. muhiimadu waa in saas u diyaariso ood kuwan soo saarto. wain wax kaloo dhiman bayrolkii unbaa dhiman, laakiin taa waa inaad ogaataa. qofka normal employee-ga shaqaalaha normalka ah waxa uu raydkiisi waxaa weeye normal employee-ga raydkiisi waxaa weeye raydkiisa waa kaas waa 353. waa qofka tusaale ahaan managerka oo kale 400 baa loogu dhufanaya iyo 50. warkaas hadda habkii abalka loo diyaarinayana waa idin sheegay. xaggan marka shirkadda magaceedaad qori, abalka la qori, dateka waxaasa la qoraya. marka taana sida lagu siiyo maad arkaysaa. waayahay bayrolkana waa idin soo gelin doonaa haddii la yidhahdo habka loo diyaariyo. laakiin casharkan waxaan filayaa inuu yahay 5 dhibcood, kana inuu yahay 5 dhibcood. marka labadoodaba dee waa iska aad bay easy yihiin haddaad muuqaalka daawato. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.